Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa looga hadlayaa xaaladaha guud ee ka jira deegaanada dawlad goboleedka Galmudug oo ka arrimiyo waxaana shirka laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in Galmudug walaaca ay ka muujisay ergooyin ka qaybgalaya shirka dib-u-heshiisiinta Galmudug oo ka yimid deegaanada bariga gobolka Galgaduud si ay uga qayb qaataan shirka dib-u-heshiisiinta Galmudug ee Dhuusamareeb ka furmaya dhawaan golaha wasiirada Galmudug ay sheegeen arrintaasi ay caqabad weyn ku noqon karto amniga Dhuusamareeb sidoo kale waxay soo hadal qaadeen golaha wasiirada Galmudug amniga Dhuusamareeb oo ay sheegeen in maalmahan dambe uu ahaa mid aan wanaagsanayn kadib markii gacan ku inta sugidda amniga laga wareejiyay ciidamada Galmudug isla markaana si toos ah ay ula wareegtay dowladda federaalka Soomaaliya haddaba hadalkan ka soo baxay golaha wasiirada Galmudug ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug uu ka furmayo shirka dib-u-heshiisiinta beelaha deegaanka Galmudug isla markaana ergooyin badan ayaa ku soo qulqulayeen maalmihii ugu dambeeyay magaalada Dhuusamareeb iyadoona ergooyinkii ugu badnaa abid ay soo gaaraan magaalada Dhuusamareeb kuwaasi oo imika ku sugan gudaha magaalada iyaguna sugaya inay ka qayb qaataan shirka dib-u-heshiisiinta Galmudug ahaatee lama shaacin xilliga rasmiga ah ee uu furmayo shirka walow ay dhiman yihiin ergooyin kale oo matalaya beelo ku sugan deegaanada Galmudug Maxamed Cabdiweli Tooxow idaacadda kulmiye Dhuusamareeb ciidamada xoogga dalka ayaa weerar ku qaaday fariisin ay al-shabaab lacagta kaga qaadaan shacabka ku nool degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada militariga Soomaaliya ee qaybta gobolka Gado ayaa waxay weerar ku qaadeen xarun ay al-shabaab ku lahaayeen duleedka degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado isla markaana ay dadka shacabka ugu qaadi jireen lacag baada sida ay sheegeen militariga Soomaaliya sidoo kale militariga Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in xubnihii ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugnaa xarunta ay weerarka ku qaadeen militariga Soomaaliya lagu qabsaday hub fara badan qaar ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay howlgalka lagu qaaday dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugan duleedka degmada Buurdhuubo ee gobolka Gado oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay ka warbixiyeen howlgalka ay qaadeen ciidamada militariga Soomaaliya iyo hubka ay gacanta ku dhigeen intaba xilliyada ay qaadi jireen ayaa la gaaray markii dadka ay nala wadaageen muslimiinta meesha joogay ee baad macnaheedu ay u barteen inay ka qaadaan yaan ku baxnay dhulka aad arkaysaan ee keynta oo dhulka ay ku umaalaysan jireen haddar dhulka markaan gaarnay way ka baxeen way carareen si fool xun bay agabka xitaa kaga carareen cagada galaysan bustow kaba gurguran si fool xun aan meesha kaga aruurinay hadii markii ciidamada geesiyaasha xogga dalka Soomaaliya ay soo garaana qaabkaas ay sameyn jireen markay ka maqan yihiin ummadda ay dhici jireen oo sina wandare ah way u la dhaqmi jireen alxamdulillah ummadna ugu duceysay sidii markii horeba aan u dhaqmi jiray ee wanaag badnay ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed loogu bartay oo u jirtay magaalada Buurdhuubo 20 kiiloomitir ayadaas saacadii baara 12 aan ku baxnay haddana aan ku sugan alxamdulillah rabbil caalamiin ururkii agu markii ay meesha aan gaarin ay ka carareen haddana maxay ahayd dadkii bulshada aan la joogno ayadaas oo baadaas ay qaadayaan ummad ay ku dhibaataynayaan qaraxyada iyo madax jibiska dhammaan bishaaraadka looga dhigayo ummadda Soomaaliyeed aan u sheegaynaa baadaas ay qaadayaan in dadkii ay ku waajibtay ay siiyaan ilaahayna ay ka cabsadaan wixii ay ku geysanayeen ay tahay wax ummadda ay ku dhibaataynayaan dadkii waa soo dhaweeyeen waan loo loogeen alxamdulillah rabbil caalamiin militariga Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay waxay gobolada dalka ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka tirsan gobolada dalka iyadoona dhaqdhaqaaqyadaasi al-shabaab loo qabsaday deegaanada ay al-shabaab hore gacanta uga hayeen ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada booliska Somaliland ayaa gacanta ku dhigay rag dil ka geystay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland sidoo kalena ciidamada ayaa waxay soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya Yoonis Duraan Cali ayaa warkan dhameystiraya wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegayay in ciidamada booliska Somaliland howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi ay ku soo qabteen rag dil ka geystay Hargeysa iyo qamri isticmaalayeen raggan ayaa jid u galay gaari ay saarnaayeen tahriibayaal ah kana yimid dalka Itoobiya
waxaana rasaas ay gaariga ku fureen ay ku dileen 2 haween ah iyagoona dhaawacay 2 qof oo kale dhammaantoodna ah dad ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee degta dalka Itoobiya. ciidamada booliska Somaliland ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan 3 eedeysano oo sidoo boolisku ay sheegeen ku lug lahaa dhacdadaasi hubkii ay adeegsanayeen iyo gaari isticmaalayeen. sidoo kale ciidamada ayaa guriga ka soo qabteen 3 ruux waxay ka soo qabteen qof haweeney ah. taliye ku-xigeenka koobaad ee ciidamada booliska Somaliland sareeye guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle oo warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa ka warbixiyay howlgalkaasi ciidamada booliska ay ku soo qabteen raggan gacan ku dhig lahaa. waxa dhacday niman budcad ah oo u galay wadada niman tahriib sida halkaas oo ay ku dileen 2 dumar laba nin ay ku dhaawaceen oo Oromadii ah. dhammaan ciidanku sidoo uga howlgalay oo ahayd aad u sareysa isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidkooyin ayay u galeen nimankii falka geystay gacantaana ku soo dhigeen nimankii gacan ku dhiglaha guri bay galeen qorigii iyo bisooda ay dhigeen ciidanku ka dabagalay isagu ka dhacay dusha sare ayuu maray hurufka ayuu raacay ciidanku waxay ku qabteen meel xoogaa u jirta guriga hubka la dhigay waxaa loogu tegey khamri tiradiisu ay dhan tahay 861 litir. allah yaa hal qof oo dumar ah oo guriga joogtay. sidoo kale 3 eedeysan ee la qabtay ciidanku gacanta ku dhigeen gacan dhiglu ee geystay dilka way sakhransanaayeen iyagoo khamri cabsan ayay falkan galeen. kadibna gurigan aan ku qabanay 861 litir ee khamriga ayay soo galeen oo soo galay oo hubka u dhigtay 2 baabuur ee lagu galay faldambiyeedka ee nimanka budcad ee jidkooyinta gaarigay wateen gacanta lagu dhigay. gaarigii Oromada siday ee taariikhda wadayna sida gacanta lagu dhigay 2 baabuur waxay yaaleen saldhigga gacan libaax ayay ku xiriirsan yihiin. baaristiina waa socotaa. maahan markii ugu horeysay oo dad tahriibayaal ah lagu dilo magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. Yunus Duraan aad ayaad u mahadsan tahay. wararka naga soo gaaray gobolka Gadana waxa ay sheegayaan in saraakiisha ammaanka ee maamulka Jubbaland ay go'aan ka qaateen odayaashii dhawaan ay cafiska u fidisay Al-Shabaab waxa ayna u diideen in ay dib ugu soo laabtaan deegaanada maamulkaasi. ku dhawaad 24 oday ayaa la sheegay in haatan ay ku xayiran yihiin duuleedka magaalada Beledxaawo ee gobolka Gado. wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in maamulka magaalada la sheegay in odayaashaasi ay u diideen in ay soo galaan magaalada Beledxaawo kadib markii ay la soo kulmeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. xildhibaan ka tirsan ismaamulka Wajeer ee Kenya ayaa ka badbaaday isku day lagu doonayay in lagu dilo. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan Kenya nooga soo diray. faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerar shalay gelinkii dambe ka dhacay waqooyiga ismaamulka Wajeer waxaana la sheegayaa in weerarkaasi uu ka badbaaday xildhibaanka laga soo doorto halkaasi. waxaana dadka deegaanka ay xaqiijiyeen in xildhibaanka waqooyiga Wajeer Axmed Ibraahim Cabdisalaan uu ka badbaaday weerarkaasi khamiistii ka dhacay halkaasi iyadoona weerarka uu ka dambeeyay iyadoo kooxo hubeysan ay kulan wacyigelin ah oo halkaasi ka socday isku dayeen inay joojiyaan kaasi oo looga arrinsanayay arrimaha tirikoobka iyo dadka deegaanka sida ay uga qaybgeli lahaayeen. kulanka oo lagu qabtay meel u dhow masaajidka Masalaala deegaanka lagu magacaabo waxaa ka soo qayb galay shaqaalaha tirikoobka iyo dadka deegaanka iyadoona looga arrinsanayay in tirikoobka si weyn loogu diyaar garoobo. hase ahaatee waxaa muuqatay in mar qura laga warheray rasaas isqabsatay. mudane Cabdisalaan ayaa kormeer waxa uu ku sameynayay deegaanada si uu u qiimeeyo diyaar garowga dadka iyo tirikoobka sida ay u suuragali karto maadaama xaalado abaar ah deegaanadaasi ay ka jiraan isla markaana dad badan oo xoolo dhaqato ahaa ay isaga barakaceen oo ay galeen wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya. markii xildhibaanka uu la hadlayay dadka deegaanka iyo shaqaalaha loogu talagalay in tirikoobka ay sameeyaan ayaa halkaasi waxaa soo gaaray kooxo maleeshiyaad ah oo u abaabulan qaab qabiil
kuwaa oo codsaday in la joojiyo kulankaasi. hase ahaatee ilaalada xildhibaanka iyo kooxahaasi ayaa rasaas isweedaarsaday. amniga cabdisalaan ayaa si weyn loo sugay iyadoona kooxihii weerarka soo qaaday ay gubeen gaari ay lahaayeen kooxaha tirakoobka inay ka shaqeeyaan loogu talagalay inkastoo khasaare nafeed uusan jirin. ragga hubaysan ayaa sidoo kale waxa ay wacad ku mareen in ay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah haddii aysan dowladda joojin. dowladda maalguufu xildhibaanka iyo kooxda qaabilsan in tirakoobka ay fuliyaan ayaa waxa ay caddeeyeen in ammaanka uu yahay mid marba marka ka dambeysa sii xumaanaya, iyagoona ka codsaday mas-uuliyiinta dhinaca ammaanka in xil weyn ay iska saaraan. taliyaha guud ee ciidamada ku sugan gobolka waqooyi bari Kenya ayaa waxa uu sheegay in ay xaqiijinayaan ammaanka inta tirakoobka uu socdo, iyadoona deegaanada fogfog ee dadka reer miyiga ah ay ku nool yihiin la geyn doono ciidamo ammaanka dadka tirakoobka sameynaya suga. balse dhacdadan ayaa waxa ay tahay mid walwal ku abuurtay dadka ku nool ismaamulka Wajeer. maslax abukar xaaji, radio kulmiye, Nairobi. warka subaxa idaacadda kulmiye ayaad dhageysanaysaan. markana wararkii dibadda. qaxootiga muslimiinta ee ku nool Bangladesh ayaa diiday inay ku laabtaan dalka Myanmar iyaga oo ka cabsi qaba in la beegsado haddii ay dib ugu laabtaan wadankooda. Marwa Ambiya oo ah hooyo ku nool xerada Shilbank haysatana gabar yar oo 1 sano jir ah ayaa sheegtay haddii ay dib ugu laabtaan ay dhiman doonaan Myanmar weeyaane. waxay dileen 4 ka mid ah qoyskeena ilaa iyo haddana ma garanayo sababta ka dambeysa. nin kale oo haweeneyda deris kula ah xerada oo lagu magacaabo Suldaan Cali ayaa isna tilmaamay intii uu ku laaban lahaa Myanmar inay u dhaanto inuu isdaldalo. si kastaba ha ahaatee gawaari loogu talagalay in lagu qaado qaxootiga ayaa dib ugu laabtay Myanmar, waxaana xukuumadda Bangladesh ay sheegtay inaysan qasab ku lahayn inay celiso dadkani.